xanuunada lama oga in la heli karo dawadooda ma jirtaa duco gaar ah oo lagaga ducaysto xanuunka sidoo kale maxaad fari lahayd wax amal oo dheeraad ah si Ilaahay caafimaadiisa wuxuu leeyahay walaalkeen xanuun la tilmaamay inaanu dawo lahayn Ilaahay baa dawada bixiya xanuun walibana dawo leeyahay sida nabigu sheegay alayhi salaatu wassalaam ma anzala Allahu daa'an illa anzala lahu shifaa alimahu man alima wa jahilahu man jahila marka inaga baan ama binaadamku baan wali gaadhin xanuunada dawadiisa xanuunada la noolaado markay qofka ku dhacaan intaynu ognahay dawo aynu ognahay inaan wahayn waxa weeye haddii ay ugu dhacaan sidaan yeelaya ducooyin gaari ma jiraan waxaan leenahay ducooyinka hawshaa ku yimi ama xanuunkaa si gaara ugu yimi ma jiraan laakiin qofka dhibaataysan ama qofka xanuunsanaya inuu waxa weeye ducaysto ducooyin dadkuna ugu ducaynayaan isaguna ku ducaysanayo waa laynoo sheegay oo inuu waxa weeye meesha xanuunaysa ama xanuunku ka hayo inuu gacanta saaro oo yidhaahdo acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir ilaahay cizadiisa iyo sharaftiisa iyo awooddiisaan magan gelaya waxaan ka magan gelayaa xanuunkan aan helayo ayaan alle subxaanahu wa tacaala ka magan gelaya أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني الله وين عرشك وين وصاحبك وحن ويدي سنة يا إنه عافي ماضي سيو اللهم اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء دعوين بدنا واحد شرح حصل المسلم كي يلقيه ليو يقول دوبنا اللي هليو وقفك حنو السنة يا وكد عي سنة كوا وكد عي سنة يا معوذتينك يا سورة الإخلاص يا آية الكرسي يجانا وسكو آخرية يا 10 بكردقنا يا يسوق كوكنا عسن إن الله سبحانه وتعالى كدوين أيو حبة السودة والنبي عليه الصلاة والسلام وشفاء من كل داء وحيابها صورا والله ينو الشيغي والله ينو تلمامي لكن وحن كلتها لنا إنا ورتمور الكيسة ينيدي سينو وناتشيو oo wax diiqada iyo wax xiriiriya inaanu iskalin waxa weeye uu ku qaabilo mar haddii Allah subhanahu wa ta'ala u qadaray oo uu la doonay inuu Ilaahay ajar kaga dalbo oo ku sabro ayaa laga doonayaa oo waxa weeye inuu u cadhoodo qadarka iyo waxa la midka uu iska ilaaliyo inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab dadka sabra ajar aan xisaab lahayn ayaa Allah subhanahu wa ta'ala siinay marka si gaar ah sabirkeenu u dardaarmayna waxaynu u sheegaynaa in xanuunkiisaas inta uu hayo inuu u yahay ajrun wa aafiya ajarna uu ka helayo dambi dhaafna uu ka helayo ayaynu u sheegaynaa nabigu wuxuu alayhi salatu wassalaam man yurid illahu bihi khayran yusib minhu qofka ilaahay wanaag uu la doono uu haleela waxbu gaarsiiyaa معناه ما إنه صاد صنو إنه واحد يقول دعان لكن قفك أي واحد كل دعان وحوي كان اسمه إلهي سيء ذنب بدل لك قداف وحنا بقول شاق عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كحنون كمدعو أمدال كمدعو حتى قضحي هدين مدو إلهي ذنوبك قضاضية مركا انتو حنون كان لنو ليهي كفارة قدية الذنب داف ayaa Allah subhanahu wa ta'ala uga dhigaya ahadiisa qaar waxa ku timi dadka caafimaadka qaba maalinta qiyaamo markay arkaan dadka la imtixaamay xanuunada la nool waxa ay heleen kuwii badqabka qabay caafimaadku waxay jeclaysanayaan adduunyada inta lagu celiyayna in la imtixaamo xanuun ay ku dhacaan markay arkaan waxa dunuub laga daadiyay dadkii ibtiladu ku dhacday marka horta waxa soo talaawaan kugula talinaynaa waxana ku raacday insha Allah ta'ala ilaahay inaad subihim bihiso Allah subhanahu wa ta'ala inaad barido ma jiro xanuun aan laga buskanayn xanuunada la sheegayo ee kala duwan dad lagu sheegay baa ilaahay isku xidhay bariyada badiyay sadaqada badiyay tabaadna la arkay iyadoo ilaahay uu caafimaad ka siiyay
marka sadaqada daawu mardaakum bisadaqa xanuunadiina waxaa ku daweysaan sadaqo buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam inaad sadaqada waxaad awoodeyso aada badsato ducada aada badiso cibaadada iyo ilaahay u dhowaanshihiis iyo isu bihinbihintiisa iyo baahidiis inaad badsato ayaan insha allahu tacaala ku dardaarmayna wallahu aclam